inaynu uga tagno Itoobiyaan ama ardul Xabash halkan waxaan doonayaa inaan fariin uga diro Muuse Biixi haddii aanu nahay dadka reer Soomaaliland ama gobolada waqooyi waanu joognaa Muqdisho xagaana waanu joognaa haddaad maanta aad abkii isirkii Soomaalinimo aad noogu badashay inaad orab noogu aftiriso oo aanu kaa dhagaysanay oo aad mar labaad haddana aad tiri waxaan idigu aqoonsan doonaa dhulkiinni baan idigu aqoonsan doonaa waxaan ku weydiinayaa Muuse aqoonsiga iyo isirnimada iyo ma horeeya dhulka iyo aqoonsiga iyo ma horeeya dadkan reer Soomaaliland Ilaahay baa aqoonsaday aqoonsi kale ay kaaga baahan yihiin haba yaraatee ma jirto ma waxaad ugu tala gashay sidii reer banu Israa'iil inta aad qaado inaad bariga dhexe aad u geyso ilaa waxaanu aragnaa Muuse waxaanu kugu naqaanay dadcun ee dadcun kugu maananaqo balse waxaan ballan kugu qaaday haddii Xabashi waddankayga aad ugu tala gashay inaad u xalaalayso aqsimu billaah aniga calanka ka taagi doona Hargeysa qofka ugu horeeyo ka taagan noqon doona Muuse haddii ay siyaasiyiinta ama dadka reer Soomaaliland ay kugu daawadeen waddanka burburkiisa iyo baabi'iisa annaga la jecel kale annaga doonayna waxaanu doonaynaa oo aanu ka dagaalami doonaa oo aanu dhiigayaga u qubi doonaa inaana taaka ka mid ah badda Soomaaliyeed aan Itoobiyaan loo xalaalay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaya oo aan arkaa shacabka Muqdisho oo cadceedda u taagan oo dareen muujinaya jacaylka ay waddankooda u qabaan waxa maanta ii muuqatay inay iiga la jecel badan yihiin dhulkayga waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadku isma nabca siyaasi dana gaar ah ummadda hortaagan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waagoor waxaan baran jirin baloodiina weerisay iyo sumcadeena ku dheelna iyo amal aqmin jirin maantana alxamdulillah wax waa barnaa macallimiin wanaagsan iyo meel oo wanaagsan ayaa wax baranaa nolosha marka hore aan ku jiray markaan imaanay xarunta Calansaar nolol xun baa ku jiray balwadaan isticmaal jiray aad iyo aad hadda nolosha aan ku jiray waa nolol wanaagsan haddii ilaahay ku dhaha macallimiintana waa wanaagsan yihiin waxbarasho fiican baan ku hayaa haddii ilaahay ku dhaha nolosheeda aad iyo aad ay u fiican tahay الشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Yaro bishaaro dadweynuhu idinkuna bil khayr dhaha ku soo dhawaada xarunta dhaqan celinta ee Markiisu Maydam waa mid ka mid ah xarumaha ugu wanaagsan ee lagu tarbiyeeyo ubadka sida caasi waalideynka kuwa diida waxbarashada iyo kuwa isticmaala mukhadaraad runta waxaa lagu bartaa xifdinta quraanka axaadiista tafsiirka quraanka iyo fiqiga sidoo kale waxaa lagu bartaa farsamada gacanta xaruntu waxay ku taalaa Muqdisho degmada Yaaqshid ka soo horjeedka iskuulka Al-Fajri wixii faahfaahinaa kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda bilanteen waa Markiisul Maydam